Real Madrid ayaa ku dhawaaqday inay kala heshiisay kooxda Manchester City saxiixeeda ugu horeeya suuqa bisha Janaayo. Los Blancos ayaa shabakadeeda rasmiga ah ku sheegtay in heshiiska uu kaga soo wareegayo Brahim Diaz kooxda Manchester City uu gaarayo ilaa June sanada 2025. Wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in Brahim Diaz uu u mari doono kooxda Real Madrid maanta oo Isniin ah tijaabada caafimaad iyadoo jamaahiirta loo soo bandhigi doono, wuxuuna kadib ka soo muuqan doonaa shir jaraa'id. Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay gudaha dalka Spain ayaa sheegaya in heshiiskan uu ku kacayo 20 milyan oo gani oo ay kaga bixi doonto kooxda Real Madrid ku bedelashada xidigan ay ka soo qaadatay kooxda Manchester City. War rasmi ah oo ka soo baxay Los Blancos ayaa lagu yiri Real Madrid waxay kala heshiisay kooxda Manchester City saxiixa Brahim Diaz, wuxuuna heshiiskiisa gaari doonaa ilaa June sanada 2025. Waxaa xusid mudan in heshiiska uu ku joogo Brahim Diaz kooxda Manchester City uu dhacayo xilli ciyaareedka soo aadan, wuxuuna laacibkan iska diiday isku day walba oo ay Sky Blue cusub kaga saxiixato. Ujeedka ugu weyn ee Brahim Diaz uu kaga dhaqaaqayo Manchester City ayaa ah sida uu ku heli lahaa koox uu kaga soo muuqan karo fursad ka badan inta uu haatan ku haystay kooxda ku ciyaarta qalcadda Etihad Stadium.